xildhibaanadan iyo wasiiradan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si ay u xaliyaan xiisada ka taagan magaaladaasi Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Xildhibaan Cabduladiif Maxamed oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle kana mid ah wafdiga gaaray magaalada Beledweyne ayaa ka warbixinayo rajada ay qabaan in ay xaliyaan xiisadaasi ka jirta magaalada Beledweyne iyo haatan waxa ay halkaasi kula kulmeen. alxamdulillah anigu xaaladaas الشكر لله بين في عنا نمر إن شاء الله قلبون واحد بدن أو غلافات واحد بدن أو عقبات أهجري وحي ودنا إن شاء الله إلى درسيسة متكان أسوأ حالنا وحجر الدواننا إن شاء الله إله بايقانا وحي حالنا أنا وأسوأ تاجنا إن أنا واحد بدن كقبنا عدير بكر الله والله هيران أصلا عقباتي كتاجنا ويبدناين لكن عقباتها الله تعالى كرو وأمد حتى نبتي أن أسكني إن شاء الله marka meel fiican ay noo martay kulay guddiga joogay ee meesha ka dhisnaa maamulka hore wax badan aan kala shirnay kala sheekaysanay marka arrinkaasna meel fiican uu noo maray insha Allah shir dambe oo kalboon bisha dhalanaysa afarteeda aan ku balansannahay way jirtaa diira bikraan wax badan aan ka hadalnay insha Allah kalboon maamulka iyo dad badan caqabado hortaagan jirtay caqabadahaas iyo meelaha ay saameynaysan wax badan aan ka niri waxaana isku afgaranay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan in arrimahaas si degdeg ay gudahooda u xaliyaan insha Allah. xildhibaanadan iyo wasiirada ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulamo hordhac la qaatay Ogaas Xasan Ogaas Khaliif kaasoo ay kala arinsanayeen sidii loo dajin lahaa xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. xildhibaanadan iyo golaha wasiirada Hirshabelle ayaa lagu wadaa in kulamo kale ay la qaataan mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si looga wada hadlo xiisada ka taagan magaaladaasi Beledweyne oo ku aadan khilaafka gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.